madaxda dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada wadanka ka jira ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu uga furmay shir looga hadlayo arrimaha ammaanka iyo wada shaqaynta ka dhaxeeya. Wariyaheena Cali Cabdiraxmaan Aadam ayaa warbixintan soo diyaariyay. xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, xasilinta amniga dalka iyo shir dhawaan la filayo inuu ka dhaco dalka Ingiriiska kaasoo looga hadlayo horumarinta iyo taageerada Soomaaliya oo ay dowladda Soomaaliya doonayso inay la tagto qorshe mid ah isla markaana loo wada dhan yahay ayaa ka mid ahaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee shirkii maanta magaalada Muqdisho ka dhacay oo u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo furitaanka shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha ugu waaweyn looga hadlay shirkan ay tahay sidii sugidda amniga qaranka la isaga kaashan lahaa, waxaana uu madaxweyne Farmaajo u cadeeyay ahmiyadda ay leedahay in Soomaaliya lahaato hagista howlaha ammaanka qaranka. madaxweynaha ayaa mar uu ka hadlayay qorshaha shirka London ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah ay la tegi doonaan shirkaasi waxa ay ku midaysan yihiin si caalamka ay u tusaan in dalka Soomaaliya uu isku duuban yahay. shirka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha shacbiga, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayadoona maalinta berita sidoo qorshuhu yahay la soo gabagabayn doono shirkan isla markaan laga soo saari doono warmurtiyeed sheegaya waxyaabihii ay isku afgarteen madaxdii ka qayb gashay shirkii maanta. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda Shiinaha u soo magacaaday Soomaaliya. madaxweynaha oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee China Qin Chen ayaa kala hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac, ayadoo madaxweynuhu warbixin ka siiyay safiirka cusub ee China ee Soomaaliya marxaladaha iyo xaaladaha dalku uu haatan ku sugan yahay. dowladda Shiinaha oo ka mid ah dalalka dhaqaalahoodu aadku u xoogan yahay ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya gacanta siiya. Cali Cabdiraxmaan Aadan, SNTV, Muqdisho.